Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo magaalada Baydhabo kulan kula qaatay qaar ka mid ah haweenka Koonfur Galbeed ayaa ku booriyay in codkooda ay kor u qaadaan oo ay qaataan doorka kaga aadan horumarinta dowladnimada iyo bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre oo cadeeyay in haweenku ay ka dulqaad badan yihiin qayb muhiim ah ay ka soo qaateen badbaadintii iyo samata bixintii bulshada Soomaaliyeed xilligii adka ayaa kula dardaarmay inay midoobaan wada shaqeeyaan oo ay ka leexdaan wadada khilaafka si hormuud ugu noqdaan ka dhabaynta rajada ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa haweenka u sheegay in 50% ay bulshada ka yihiin aqoon ay kaga wanaagsan yihiin ragga suurtagalna aysan ahayn in dalku horumaro adduunyadana uu la tartamo haddii haweenka Soomaaliyeed xaqooda la siin waayo isla markaana laga talagelin mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed halka loo jihaynayo. annagu haddii marka dhaqankeena uu yahay inaan 50% oo rag ah aan isticmaalno 50% bulshada kale oo haweenahna aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno su'aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno waddanka nagu dhegan oo Kenya ah ama Rwanda ama kan Yurub ama Mareykan oo 100% shacabkiisa oo dhan isticmaala iyo annagoo dunida 30 sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah 50% inaan isticmaalno dadkeena oo ah awoodda ugu badan oo aan leenahay dal ahaan. su'aasha ay rabo ragga Soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anigu horeeyo waxay tahay sidee baan horumar ku gaaraynaa. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ugu dambeyntii haweenka kula dardaarmay inay qayb ka qaataan sugidda amniga ciidanka ay ku dhiirigeliyaan gudashada waajibaadka ka saaran xoreynta dalka iyo difaacidiisa xogtana ay la wadaagaan si ciidamada ay ugu suurto gasho gudashada waajibka ka saaran in dalka ay ka xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab. waxaa kaloo la idinka rabaa raggana waa wiilashiinni iyo kuwa aasasku ahaydeen iyo walaalihiin iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka asaasmaa dowladnimadana qoyskay ka bilaabataa iyo carruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqaysaan idinkaa la rabaa inaad ciidankii dhiirigelisaan idinkaa xogta rasmiga og idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan haddii haweenka Soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin waxaa yaraanaya rajada dalka uu leeyahay maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga Soomaaliyeed sidii burburka uu aad u badnaa idinkana lama rabo inaad siyaasadii lagu soo daalay dariiqeeda amartaan. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno ka socday rugta ganacsiga Koonfur Galbeed waxaana kala hadlay horumarinta ganacsiga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ganacsiga Soomaaliya isagoo uga mahad celiyay doorka ganacsiga Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo kobcinta dhaqaalaha. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Baydhabo.